kulan aad u ballaaran oo ay isugu yimaadeen wariyaasha inta badan ku dhaqan waddankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa lagu taageerayay wariyihii dhaawaca uu soo gaaray Risaaq jaamac cilmi balaag oo ay dhawaan kooxaha dhagarqabayaalka ku dhaawaceen magaalada Muqdisho. kulankan ayaa sidoo kale inta badan waxaa looga hadlay dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha. imaatinkeena halkan ahmiyadeedu waa laba arrimood: inaan awood ahaan wixii aan karaankeenna garab istaagno iyo inaan muujinno inaanan raalli ka ahayn una dulqaadanayn dawladda iyo mas'uuliyiintana aan ku boorinayno in arrimahan oo kale laga hortago waxna laga qabto. waan ka xunnahay anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dareenka aan qabno inay nala qaataan dareenkaas oo ah dhibkaas ninka walaalkeena oo suxufiga ah oo aqoontiisa iyo garanaysa waqtigiisa mar walba ugu adeegayay bulshada Soomaaliyeed gacan ka gardaran oo aan ilaahayna aqoonsanayn ummadana aqoonsanayn ay ku xadgudubtay oo ay naftiisa khatarta gelisay maantana runtii noloshiisu ay ciriiri gali karto haddii aan ilaahay ka sokay aan dad u gurmada la helin inteena inta namaqlaysaba. inkastay dhibaato tahay oo wiil walaalkeena dhaawac la soo gaariyay maxaa la dhahaa ii sheeg aan ka wada tiiraanyeysanahay markastana way dhacdaa in saxufiyaasha dhibaatooyin loo geysto. Risaaq nin aad iyo aad u karti badan wuxuu ahaa markaan aad iyo aad wax ugu sheegnay nin oo ahaa degan nin bulshada aad ugu dhex jiro wuxuu ahaa nin shaqadiisa aad ugu fircoon runtii agaasibana ka ahaa Somali Channel TV oo runtii qabtay shaqo aad iyo aad u badan oo qof kasta u yaqaan. runtii waxaan leenahay ilaahay caafimaad siiyo isagana faatixadana u mareynaa. waxaan rabaa si aan anaguna u noqono dad waxay sameynayaan ku kalsoon ama habbi ku ah ayaguna ha u noqdaan dad habbi ku ah ha isu yimaadaan ha samaystaan network oo saxaafadda oo dhan ay isugu mid tahay si ay wariyaha u shaqeynaya hadda balaag oo kale maanteeto haddii uu jiro network saxaafadeed oo guud ma u malaynahay in maanta loo baahnaan lahaa inaan la isu yimaado aan wax waxayn lahayn. ma aha markii uu koowaad oo Mr Black mataqaana wariyaasha la dilaayo oo mataqaana xuquuqdooda lagu ciyaarayo. waxaan jeclahay in dawladda Soomaaliya wax ka qabato maadaama ay maantana ay tahay dawladda u taagan oo maantana caalamka dham laga yaqaano. aniga ahaan runtii aad ii taabatay sababtoo ah dhawaan Muqdisho aan tagay wiilka aad u ii soo dhaweeyay nin dhalinyaro oo fircoon qofka way kaaga duwan tahay markii aad taqaanid dhibaato dhalinyaro badan oo wariyaal ah way ku dhacday dhibaatadaas waa ka wada xunnahay. marka dawladda waxaan ka codsanayaa ninka haddii aan waddanka waxba loogu qaban karin in bal loo fiiriyo wixii kale oo loo qaban karo. TV-yada dhan waa idin mahad celinayaa sida iskugu duuban tihiin walaalnimada ah anagana ganacsata haddaana waa idin garab taaganahay. waxa uu yahay kulan aan ku cambaareynayno dhaawacii loo geystay agaasimihii Somali Channel ee magaalada Muqdisho wariye Risaaq jaamac cilmi balaag. waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo dhammaan bahda saxaafadda marka waxaan leenahay aad baan uga xunnahay. waxaan baaq u dirayaa dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mas'uuliyadda ay ka saaran inaad ilaalisaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku shaqeeyo arrimaha adag dadka dib ku geystana waxaan leenahay fadlan iska daaya wariyaasha waa dad u shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed. waxaan caawa halkaan isugu nimid wariyaasha dalka Soomaaliyeed kamid ah Risaaq jaamac cilmi balaag oo gacan ka xaq daran ay xabado ku dhaawacday 1 jeer mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan idinka mahad celinayaa isku duubnaanta iyo Soomaalinimada iyo muwaadinimada halkaan isugu timideen waana ku mahadsantihiin. kulankaasi ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay si heersare ah sidoo kalena waxaa inta badan looga hadlay in dhibaatooyinka laga daayo wariyaasha Soomaaliyeed. Yusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.